السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييمها بدن كسر لوذا channel كعرض عاشق يا صاحبكين عبد الله محمد عبدي CMC مركلة يا مقال أما حكمة كسابسان بارني مدى والدك بقرآني وإيماني وتدبيراتي قارنمدو مر ودين مرنا ودين مرنا وكيد هدبا لسعو قصدا لغو مقعابي باقولي دوبك أها oday duq ah ayaa wuxuu la noolaa wiilkiisa gabar uu saddeq u yahay iyo cunug yar oo 4 jir ahaa oo uu awoow u ahaa odaygu wuxuu ahaa nin da'diisu ay aad u weyn tahay gacmihiisuna way jareynayeen aragga indhihiisana aad bay u liiteen tilaabaduna way dhibaysay markuu cuntada cunayo ama uu biyaha cabayo inta badani wuxuu ku daadin jiray miiska cuntada lagu cuno awooda gacmihiisa oo liitay darteed iyo gabarta uu saddeqa u ahaa oo miiska kula cunteen jiray ayaa aad u dhibsaday duqa waa in xal loo keenaa oo arintan aan ka joojinaa wiilkiisii ayaa yiri wiilkiisii iyo gabadha uu saddeq u ahaa waxay u diyaariyeen miis yar oo gooni loogu bixiyay cuntadiisa si uusan u dhibin mar dambe xilli intooda kalena ay ku raaxaysanayeen miiskii weynaa ee raashinka sidoo kale markaana waxay u hagaajiyeen baaquli dhoob ah si uusan mar kale u jebin alaab dambe markii ay fiiriyaan odayga dhinaciisa mararka qaar indhihiisa waxaa ka muuqatay murugo wuxuuna dareemayay in gooni loo takooray cunugii yaraa ee uu awoowaha u ahaa xaaladda oo dhan indhaha ayuu ka fiirsanayay wax walbana wuu dareemayay habeenkii dambe iyadoo cashada loo fadhiya ayaa wiilkii yaraa aad u mashquulay isagoo miiska hoostiisa alaab ku ciyaarayay aabihiis ayaa si degan u weydiiyey oo yiri aabe maxaa kugu dhacay oo aad ku mashquulsan tahay wiilkii yaraa ayaa si degan ugu jawaabay aabo waxaan idiin sameynayaa adiga iyo hooyo miis yar iyo baaquli dhoob ah si aad ugu cuntaan cuntada marka aad duqowdaan oo aadan aniga ii dhibin cunugii yaraa oo dhoola cadeynaya ayaa dib ugu noqday howlihiisii subxaan allah ogow waalidka wixii aad ku samaysaa ilmahaaga ayaa kugu samayn doono mustaqbalka ogowna ninkii tiin abuurto timir ma goosanayo waalidkaaga wixii aad ku samaysaa ayaad miraheeda guran doontaa insha allah haddaba waxaan talo u soo jeedinayaa qof waliba waalidkiisa uu nool yahay in uu u baari noqdo uuna u falo inuu u sameeyo sida uu jeclaan lahaa marka uu duqoobo in asagaba loo sameeyo waa saaxiibkiin cabdullaahi maxamed cabdi CMC oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo